markii Black Hawk Down ay ka soo muuqatay shineemooyinka sanadkii 2001, baadhayaashu waxay ugu yeedheen mid qalafsan, xaqiiqo ku salaysan, waddaniyadna ku dheehan tahay. laakiin daaha dabadiisa qaraxyada iyo geesinimada la sheegayo waxaa ku hoos jira wax kale. mid ka mid ah waxyaabaha muujinaya aragtida boqortooyo weyn. markaad si dhow u eegto waxa uu filimku ku daray, ka reebay, iyo waxa uu ka hal abuuray, waxaa soo baxaya muuqaal muujinaya xadhko iyo ujeedooyin isku xidhan. howlgalkii militari ee fashilmay oo loo beddelay sheeko ka dhigaysa Maraykanka inuu u ekaado geesi, xitaa haddii aysan run ahayn. filimku wuxuu ku bilaabmayaa fowdo, laakiin weligiis ma sheegayo sababta Soomaaliya ay dhibaatada ugu jirtay. kadib dhicitaankii keligii taliyihii Siyaad Barre, dagaaladii sokeeye, macaluushii, iyo faragelintii Maraykanka. howlgalkii Restore Hope wuxuu ku bilaabmay oo laga filayay inuu noqdo mid waday gargaar bini'aadantinimo, laakiin sanadkii 1993 duqaymaha cirka ee Maraykanku waxay dileen dad rayid ah, waxayna kiciyeen cadhadii Soomaaliya. sida uu qoray cilmi baare Ales Dewal, gargaarkii bini'aadantinimo ee la filayay wuxuu isu beddelay howlgal militari, gargaar lagu qariyey ciidamo gaashaama. kadib markii taariikhdaas la tirtiray, Soomaaliya waxay noqotay waddan qalalaase ka taagan iyada oo aanay jirin wax sabab ahi. Maraykankuna wuxuu noqday caawiyihii aan loo baahnayn caawintiisa. filimku wuxuu ku dhammaanayaa Maraykanka oo keligii iskii u dagaalamaya si uu uga baxo Soomaaliya. laakiin taas ma ahayn wixii dhacay ee runta ahaa. badbaadintii dhabta ahayd waxay ahayd howlgal waddamo badan ku midoobeen oo qaramada midoobay watay. gaadiid dagaal oo Maleeshiyaan ah, taangiyo dagaal oo Bakistaani ah, iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Maraykanka oo ka tirsan guutada 10 Mountain ayaa magaalada dhexdeeda si xoog ah u maraya si ay u gaadhaan bartilmaameed qorshaysnaa. 2 askari oo Maleeshiyaan ah ayaa ku dhintay habeenkaas. hal mid oo ka mid ah xaqiiqooyinkaas laguma soo bandhigin filimka. marka laga reebo, sheekadu waxay sii haynaysaa fikradda ah in Maraykanku yahay geesiga keliya, uusan u baahnayn wax caawimaad ah, isla markaana aan la joojin karin. filimka Black Hawk Down, Soomaalidu marnaba ma aha dad keliya, waa sawiro hadh ah oo lagu arkay qoryo iyagoo sita. ma garanayno magacyadooda, ma maqalno iyaga oo hadlaya, mana ka aragno wax murugo ah oo la aqoonsan karo. khabiirada filimada ee Ella Shohat iyo Robert Stump waxay tan ugu yeedhaan aragtida qowmiyadeed ee xadidan, sheekooyin ay reer galbeedku jecel yihiin inay arkaan, go'aamiyaan micnaha, oo uga sheekeeyaan dadka kale. mid ka mid ah baadhayaasha ayaa yidhi, filimada dagaalka waxaa loo qoondeeyaa keliya in la tuso wax xadidan si loo arko. kaamiradu waxay muujisaa cidda dhibaatadeedu leedahay muhiimad. taas waa ujeeddo qorshaysan, ma aha shil. waxaa si taxadar leh loo qorsheeyey si aan u dareenno naxariis dhinac gaar ah ka raran. waaxda difaaca Maraykanka waxay Black Hawk Down siisay helikobtaro, la taliyayaal, iyo oggolaansho ku saabsan qoraalka sheekada filimka. iskaashiga militari Hollywood ma aha wax cusub, waa siyaasad. tobannaankii sano ee la soo dhaafay, sameeyayaasha filimada waxay ku beddelaan helidda marino iyo qalab, beddelkeedana saamayn ayay helaan. filimada dagaalku asal ahaan waa xayeysiis shaqaalaysiineed oo qarsoon. cilmi baadhisyo ayaa muujinaya cadaalad darro la mid ah inay ka dhacdo meelo ka baxsan filimada sidoo kale. xarunta cilmi baadhista ee Pew waxay ogaatay in ku dhowaad kala badh wararka dagaalkii Ciraaq ay diiradda saareen ciidamada Maraykanka. sheekooyinka dadka rayidka ah ee Ciraaqna waxay ku dhowaayeen kuwa aan la arki karin. khubaradu waxay tan ugu yeedhaan saamaynta boorsada jidhka, bodybag effect. naxariista keliya waxaa lagu dareemaa nolosha Maraykanka. ururada sida Airways waxay heleen in warbixinaha Maraykanka ee dhimashada rayidka ay aad uga hooseeyaan qiyaasaha ay sameeyeen kooxaha madaxa bannaan. marka dhibaatada dadka kale la iska indho tiro, dagaalku wuxuu markaas u muuqdaa mid nadiif ah, oo u muuqda mid la ogol yahay. filimku wuxuu qaaday waddo cad oo muujinaysa in wax walba ay fudud yihiin. Maraykanku waa geesiga, inta kalena waa khatarta. laakiin taariikhda dhabta ahi taas ma taageerto. dagaalkii labaad ee adduunku wuxuu ahaa wakhtigii keliya ee ka duwanaa. Maraykanku wuxuu ku biiray oo keliya kadib markii weerarku dhacay. laakiin fikradda ah in Maraykanku mar walba u farageliyo sababo u muuqda kuwa sax ah weli way sii socotaa. 20 sano kadib, Netflix waxay samaysay filim kale oo ku saabsan Muqdisho, mar kale iyadoo Ridley Scott uu ku lug leeyahay. markan dadka Soomaaliyeed waa la muujiyey, laakiin ma aha kuwa diiradda lagu saarayo iyaga, waxay u muuqdaan sidii meesha in lagu qurxiyey. ma jiraan taariikhyahano madax bannaan ama khubaro Soomaali ah.
keliya waa haliyeeyo dagaal iyo sheeko laga soo qaatay buug uu qoray hal askari. Waxay u muuqataa inaanay ku saabsanayn sixidda sheekada balse ilaalinta xakamayntii hore, hab lagu ilaalinayo isla khuraafaadkaas oo qaab cusub loo dhigay. Inta badan Soomaalida soo martay dhacdadan ma heli doonaan fursad ay kamarada uga soo muuqdaan daabacaadda ama madal ay ku sheegi lahaayeen waxa dhab ahaan dhacay. Iyada oo Scott mar kale direktor yahay, sheekadu waxay weli gacantiisa ku jirtaa, iyadoo ku celinaysa isla khaladaadkii iyo meelihii laga gaabiyey markii hore. Marka Hollywood ay ka sheekaynayso sheekooyinka dagaalada, badanaa waxay muujisaa waxyaabaha laga arko aragtida duuliyaha ama generaalka, marna ma aha aragtida askarta ama dadka rayidka ah ee dhulka ku sugan. Xitaa marka sheekadu muujiso dhacdooyinka dhulka ka dhaca, aragtidu weli waa la xakameeyaa oo waa mid dhinac keliya ah. Black Hawk Down waxay muujisaa geesinimo laakiin ma sheegto sheekada oo dhan. Waxa ka sii xun ayaa ah, waxay qarinaysaa cawaaqibka ficilada Maraykanka ee dadka aan waxba galabsan ee aan weligood codsan in sheekadaas qayb ka noqdaan. Labada filim, kii asalka ahaa ee Black Hawk Down iyo kan Netflix, waxay sheegtaan inay dhab yihiin, laakiin midna si dhab ah uma oggola Soomaalida inay dhinacooda ka sheekeeyaan. Maraykanku wuu u muuqan karaa geesi maxaa yeelay gacantiisa ayay ku jiraan kamaradaha, lacagta, iyo xusuusta dadka. Askarteedu waxay ku laabtaan guriga iyagoo helaya heshiisyo buug iyo barnaamijyo dood ah. Dadka dhibaataysan haddii ay badbaadaan, ku dhowaad weligood lama maqal, ilaa codadkaas si dhab ah loogu oggolaado inay si xor ah u hadlaan, ku salaysan sheeko dhab ah, waxay sii ahaan doontaa ku salaysan hal dhinac.